shirkan oo aan dareemayno inuu leeyahay runtii ahmiyadiisa iyo muhiimad gaar ah inuu u leeyahay ummadda Soomaaliyeed Soomaaliya sidoo saaxiibkay sheegay waxaan ognahay waxa haysto niman dhibaato ku haya khawaarij ah fikir khaldan wato meelo kale laga soo waariday reerkii nabad noqon lahaa iyo dadkii nabad noqon lahaa dhammaan ba caqabad ka weyn ayagu ku abuuray fikir diimeed oo munxarif ah oo lid ku ah diinta islaamka dalkii la yimid sidoo saaxiibkay sheegay ba isku diray wiil iyo aabihii kala geeyay aqeedadoodii iyo aragtidoodii diimeed ee saxda ahayd ku furay tashuush ayaa ka jiro runtii waxaan isleeyahay marka in ayaga loo raadiyo horta xal ayaa muhiim ah xalka loo raadinayo muxuu yahay waa in dagaalka dawladda ay ku qaaday la xoojiyaa lagu garabsiiyaa maxaan ka heshinaynaa marba hadaanan aragtidii diintii iyo midii mabaadiida qolo meel kale laga maamulay dalkii nala joogto inuu dhibaataynayso Soomaaliya way diriri jirtay waraha ay ku diriri jireen iimaalaha biyaha daaq ay ku diriri jireen laakiin caqabaadka dhacay dhowr iyo 10 sano la soo dhaafay waxaan filayaa waa wax Soomaaliya ku cusub weey waxaan markaa runtii taakiidinayaa saaxiibkay hadalkiisii ahaa in agood la isugu geeyo la dagaalanka kooxda si dalka iyo dadka loo badbaadiyo saaxiibada beesha caalamkana runtii anagoo ugu mahad celinayno garab istaaga ay u muujiyeen dawladnimada dib u dhiska dawladnimada Soomaaliyeed waxaan hadda mar labaad leenahay agood ilaahay baa agood leh waxaad haysaan inaad nagu garab siisaan la dagaalanka nimanka si aan ugu gulgaarno de Soomaalidu waxay tiraahdaa rag iyo gel dabcan dumarkuna way soo galayaan marka rag la leeyahay bini'aadanka laga wadaa gogashooda waa nabad meel marka aysan nabad oolin de qofkii dareen ku joog u yahay markaad baxdo aad isleedahay maxaa kugu soo ziyaadi doon runtii waxaan isleeyahay qofkii marka cabsi iyo khoof iyo walwal baa ku furan waxaan soo jeedinaynaa marka in dib u heshiisiinta